have to iyo waxa ugu horeysa has to. Yes, so marka have to goorma isticmaalaa, has to maxay goorma isticmaalaa. First aan ku sharaxo horta farqiga u dhaxeeya have to iyo has to. Have to maxaa isticmaalaa, we use have to with I, we, you, they. Sidoo kale waxaa dhahnaa I have to wake up. sidoo kale waxaa dhahnaa they have to wake up. sidoo kale waxaa dhahnaa we have to wake up. So intaas waxaa isticmaalaynaa have to. So had to waxaa isticmaalnaa ayada like when we talking about past, like markaan ka hadlayno waxaan past mean. Tusaale kale tii hadda oo kale markaan dhahay oo kale waxay ahayd inaan soo tooso xilli hore iyo ama markaan dhahaysa xitaa waxay ahayd shalay inaan yacni shalay waxay ahayd inaan homework ka shaqeeyo, iskuulka homework ma ka shaqeyn. So waxaa dhahaysaa I had, so markaas waxaa dhahaysaa I had to do my homework yesterday. shalay waxay ahayd inaan homework aan ka shaqeeyo. mataqaanaa farqiga u dhaxeeya can iyo be able. aamin mataqaanaa farqiga u dhaxeeya modal verbs iyo semi modals. Hello everyone, kusoo dhawaada casharka oo Ingiriisi. casharka hore waxaan ku baranay modal verbs. video ama casharkan waxaan ku baran doonaa semi modals. waxaan eegi doonaa have to, has to, had to, need to iyo dhammaan semi modalska. Okay, so dhamaadka casharkan waxaad baran doontaa sida loo isticmaalo ama goorta la isticmaalo semi modalska ugu muhiimsan ee Ingiriiska. Okay, let's get started with our lesson today. First waxaan ka bilaabanaa horta semi modals maxay yihiin. What are semi modals? semi modals maxay yihiin? waxaan ku joognaa semi modals. Yes, semi modals are verbs waa ficilo that are similar to modal verbs, kuwaas oo la mid ah modal verbs kan soo baranay, but they follow waxay raacaan slightly different grammar rule, sharci yar oo grammar oo kala duwan ama xoogaa xeerar grammar oo kala duwan ay raacaan. What do we use semi modals? maxaa isticmaalaa marka? We use semi modals waxaan isticmaalnaa to talk about inaan uga hadalno necessity, waxa muhiim, waxa lama huraanka necessity, obligation, waxyaalaha waajibka ah, sidoo kale advice tala. advice waa tala marka qof tala siinaysa. sidoo kale past habits, caadooyinka hore, iyo ability, awood. So there is no big difference between modal verbs iyo semi modals. difference uu yahay kaliya waxaa waaye modal verbs ka isbedelaan laakiin semi modals way isbedelaan. mid waliba ayaan baran doonaa have to iyo dhammaan semi modalska next mar. hadda waxaan haysanaa common semi modals ama waxaan haysanaa common semi modals. semi modalska ugu muhiimsan ama kuwa commonka ah Englishka waxa ugu horeeya have to, waxa ku xiga has to, had to, need to, ought to, used to and be able to. so marka waxaan baran doonaa have to goorma la isticmaalo, si loo isticmaalo, maxay tahay farqiga u dhaxaysa modals iyo modal verbs, dhammaan ayaan eegi doonaa maanta. next, so waxa ugu horeeya have to. inta haddaan soo tirinayna have to, has to, need to, ought to, used to iyo dhammaantooda mid waliba waxaan baran doonaa sidii loo isticmaalo iyo goorta la isticmaalo. Okay, have to iyo waxa ugu horeysa has to. Yes, so marka have to goorma isticmaalaa, has to maxay goorma isticmaalaa. First aan ku sharaxo horta farqiga u dhaxeeya have to iyo has to. have to maxaa isticmaalaa, we use have to with I, we, you, they. sidoo kale waxaa dhahnaa I have to wake up. sidoo kale waxaa dhahnaa they have to wake up. sidoo kale waxaa dhahnaa we have to wake up. so intaas waxaa isticmaalaynaa have to. has to waxaa isticmaalaynaa with she, he iyo it. sidoo kale waxaa dhahnaa he has to, she has to iyo it ayada naftirkeeda haastaasi qaadataa. so marka maxaa isticmaalnaa marka labadooda? we use have to and has to labada waxaa isticmaalnaa for obligation, waxyaalaha waajibka u isticmaalnaa obligation sida must oo kale. hadda waxaa isweydiinaysaa waa maxay farqiga u dhaxeeyo have to iyo must. so must waxaa loo isticmaalaa strong obligationka, waajibaadka markuu waajibku markuu strong yahay, laakiin labaduba sidoo kale difference weyn uma dhexeeyo. taasna waxaa waaye modal verbs, tan waa semi modal. example iska aadayna marka. hadda waxaan marka have to waxaa isticmaalaa obligationka oo kale, waxyaalaha oo qasabka in la sameeyo. sidoo kale inaa qofku dhaho oo kale you have to go to school, waa inaa iskuulka aadaa, taas waa obligation, bilaan iskuulka in la aado waa must. so hadda example iska maxaa haysanaa I have to wake up early, waa inaan toosaa early, xilli hore waa inaan toosaa. okay, so hadda waxaan ku dhahay have to waxaa isticmaalaynaa with I, we, you, they. وجد مركات وحاول استعمالنا I have to استعمال. has to إنه وحاول استعمالنا وش singular she, he, to. وحنقول she, he, it. okay. تمام فان I have to wake up early وإن أنت صاحي له. next, she has to wear وإن حرتها a school uniform school كوين حرتها. this is rule. هذا مرجي بيسمى واحد مرك obligation أو واجبه. okay, you have to wear a school uniform وإن حرتها تسوى obligation. هذا وين فان نعمل have to, has to. وحنا have to وحا استعمالنا
subjectida sida I, we, you, they. Has to waxaa isticmaalayna subjectida sida he, she, it iyo singular nouns ka tan plural nouns kooda. Okay, next waxaa isna hadda had to maxay tahay maxaa isticmaalnaa horta had to iyo have to waa horta isla socdaan labadaas waa hal group. So had to waxaan isticmaalnaa ayada like when we talking about past, like markaan ka hadlayno waxaan past mean tusaale kale tii hadda oo kale markaan dhahay oo kale waxay ahayd inaan soo tooso xilli hore iyo ama markaan dhehaysa xitaa waxay ahayd shalay inaan yacni shalay waxay ahayd inaan homework ka shaqeeyo iskuulka homework ma ka shaqeyn. So waxaa dhehaysaa I had, so markaas waxaa dhehaysaa I had to do my homework yesterday. Shalay waxay ahayd inaan homework aan ka shaqeeyo. sidoo kale markaan dhihi rabna xitaa taa past aytan waxaa isticmaalnaa marka uu yahay يعني obligation كواجبات مركو يا past. اوكي maxaa isticmaalnaa intaan hor dhicin we use had waxaan isticmaalnaa for past obligation markuu past yahay waxaan waajibaadkan past mean difference have to iyo has to u dhaxeeyo waa intaan oo kaliya. Example iska fiiri marka I had to finish my homework yesterday. shalay waxay ahayd inaan dhameeyo homework-geyga inaan dhameeyo ayay ahayd. sidoo kale waxaan haysnaa they had to leave early wa inay baxaan xilli hore. Okay, so marka ayada had to iyo have okay marka difference u dhaxay maxay have to has to iyo had to. So had to ayada pronouns oo kala qaadan todoba pronoun I, we, you, they, he, she, it dhamaantooda way wada qaadanayaan. Okay, waxay kala soo cusmaan sida have to iyo has to ma todoba waa isticmaalaya. tusaale waxa dhigaysa I had to finish my homework, to finish we had to finish iyo dhamaanadi todoba pronoun I, we, you, they, he, she, it dhamaantooda. Okay, next waxaan hadda need to maxay tahay maxaa isticmaalnaa first sort need to maxaa isticmaalnaa we use need to waxaa isticmaalnaa for necessary waxaa waaye lama huraan waxa aan laga maarin. sababta marka ay soo kale I need to go to the doctor like weynaan dhakhtarka aadaa adi waxyaalaha waxaa isticmaalnaa waxyaalaha necessity ama aanan ka maarmin oo kale oo waxyaalaha maxaa way marka inta sharaxitaan yar something important to do yani wax oo muhiim ah in la sameeyo. Example iska fiir marka ayada need to kaliya waxaa isticmaalnaa waxa necessity oo muhiimka ah. tusaale kale inaan ku dhaho example ka aysan oo kale you need to drink more water wa inaad cabtaa biiban that's important. So that's something important to do waa wax oo muhiim in la sameeyo sababtoo haddaan cabin caafimaadka inuu khatar gaa laga yaaba. sidoo kale waxaan haysnaa we need to practice English every day wa inaa English practice gareena maalin walba waa very important waa muhiim. Okay, she needs laakiin inta waxaa jiro need to ayada waxay ku xiran tahay sidoo kale subjective mar hadduu sidoo kale subjective uu noqdo she, he, it, s ayaan ku dareynaa saa hadda u jeedo. So already hadda waxaa haysataa difference u dhaxaysa modal iyo modal verbs. si modal soo u jeedo hadda need to already s ay qaata laakiin can never take s ma qaata s sidoo kale kuwaas s ma qaataan. That is the difference. So hadda jumladan she needs to take this medicine for 1 month wa inay laqadaa daawadan muddo oo hal leh waana muddo hal bil inay daawadan laqado qoftan waa muhiim waa necessity waa wax lama huraan ah. So saatana isticmaalna tan need to waxa isticmaalna lahayn necessity. Number 4 waxaan hadda auto maxay tahay maxaan u isticmaalnaa we use auto waxaan u isticmaalnaa for advice talo. Like I can say like auto is similar to should waxay limit tahay aan kala jeedaa should sababtoo ah should ayaan waxa isticmaalnaa ayadu waa modal verbs tan waa si model should ayadu waxa isticmaalnaa waano. Okay, badanaa real life ku xal isticmaalaa should laakiin ayadu naftirkeeda. Example is you ought to respect your parents wa inaa xushmaysaa waalidiintaada. You ought to respect your parents. sidoo kale waxaa we ought to help each other wa inaan is caawinaa yani midba midka kale wa inuu caawiyaa. That's advice waa waano. Next used to maxay tahay maxaa isticmaalnaa we used to for past habits. tan waxaa isticmaalaynaa caadooyin hore past habits caadooyin hore la soo dhaaf. marka aad ka hadli rabto caado ama dabeecad oo past ah lahaan jirto tusaale kale inaad dhahdo waxaan booqan jiray awowaheyga weekend walba maxaan dhahna I used to visit my grandfather every weekend. So that is past habits like things that were true in the past inta oo jeedaa yani shayada oo muhiimka ah ama shayada runta ah oo pastiga taas yani waxyaalaha past habits oo aad sameyn jirto past. Example iska I used to play football every weekend waxaan ciyaari jiray kubad football every weekend khamiis iyo jimco walba. weekend waxa maalmaha fasaxa. She used to live waxay ku noolaan jirtay in Nairobi magaalada Nairobi. Okay, used to hadda waxaan used to waxaan isticmaalnaa past habits I mean like
caadooyinka hore marka ka hadlays wax hore u sameyn jirto okay waxyaalahaas ayaan u isticmaalnaa used to okay next waxaasna be able to maxay tahay area be able to ayadana sidoo kale waxaan we use be able to waxaan u isticmaalnaa ability aan u isticmaalaa like can oo kale can ay lamid tahay ayada laakiin difference u dhexeeya maxaa waay be able to way isbedesha ayada marba tense loo isticmaalo ku xiran tahay ama si loo isticmaalo way isbedelee laakiin can isma bedeshay that is the difference only so be area hadda example iska fiiri waxaan haysanaa he is able to solve the problem wuxuu awood u leeyahay inuu xaliyo dhibka يعني دبك إنه حالي أبود أقول لي so هذا واحد اسمه دينا سا كرسي لما بسيج وحنا نقول be able أنت محايا سنة able بس أري be وحيارة إنه كل شيء so be وحنا نقول كرا is أم وحنا نقول كرا أم وحنا نقول كرا أم وحنا نقول كرا was where هذا وحنا كل حرنا واحد استعمال صار أكرا دي هي استعمالنا هي مرك ما دام is أقرأ وحالنا he is able هذا شيء استعمال she is able حاليا she is able to solve the problem وحي أود ولا إنها حلس دبكاس سوكل إيد أيضا هذا استعمال لكن هذا استعمالنا I أوكله مركز أما استعمالنا بيجين وحنقنا وحدينا I am able to solve the problem وحن أود ولا إنها حلي problem كاس so هذا they we you استعمالنا وح استعمالنا I استعمال وحدينا you are able to solve the problem وحد أود ولا إنها دبكاس حلسه سوكل هذا استعمال we وحدينا مركز you are able to solve the problem وحن أود ولا so مركز be أسوي حكوحين subject استعمال شو تدور subject سوكل هاي next example كله they were able وح أود ولا to win the match إن عيارته كوجولستان okay are you getting what I'm saying like be able أيضا وح استعمال ability وح أودنا جد they were able to win the match وح أود ولين أم وح أود ولي أمين وح أود ولا هاين مدام باستيتو وح أود ولا هاين إنه كوجولستان the match عيارته okay I think you understand be able أيضا وح استعمال لا أوكلي ability مركي ability هنا كان أي لميتها okay so today we learn the most common semi-models in English okay waxaan baranay out to waxaan baranay has to had to have to iyo dhammaan semi-models kaan baran so now it's your turn try making your own sentence using this semi-models that's very important adi jumlad adiga aad leedahay dhiso ee jumladahaada gasho okay and don't forget to subscribe like and share for more lessons English